safiirka islaamka miyaa la dilayaa anigoo nool berita Yurub waxay ogaan doontaa natiijada ka soo baxda arrinkan. Hadalkan waxaa yiri geesiga muslimiinta geesi taagnaa 10 sano goob dagaal magaciisa marka ay maqlaan reer galbeedka ay ka baqi jireen Suldaan Suleymaan Al-Qaanuuni. waxaan ka hadlayaa maanta suldaankii weynaa taariikhdiisa dhammaystiran Suleymaan the Magnificent. magaciigu waa Jaabir Cusmaan JB. halkan waa madashiina xikmaso ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Suleymaan Al-Qaanuuni waa suldaankii 10aad ee boqortooyada Cusmaaniyiinta iyo kii labaad ee haysta darajada Amiirul Mu'miniin oo ka tirsan aqalka Cusmaan. waxaa awoow labaad u ahaa Maxamed Al-Faatix. suldaanka magaciisa dhammaystiran waa Suleymaan bin Saliim bin Bayazid bin Maxamed Al-Faatix. waxa uu dhashtay taariikhda hijriga marka ay ahayd 900 safar 6deeda milaadiguna ku beegneed 6 November 1494 miilaadi. waxa uu ku dhashtay magaalo la yiraahdo Trabzon. waxa uu ahaa wiilka kaliya uu aabihii dhalay. waxaa walaal la ahaa Suleymaan hablo badan. waxaa macallin u ahaa jiray sheekh caan ahaa. marka uu qaangaaray awowgii ayaa loo weydiiyey in gobol loo dhiibo. xilligaas dhalinta markay weynaadaan 20 jirada kula dhow yihiin ayaa gobollada yaryar la geyn jiray si ay u soo tababartaan maamulkana ugu soo bartaan. aabihii oo xilligaas Trabzon haystay ayaa wiilkiisa awowgii ugu codsaday in Suleymaan meel loo dhiibo. ugu dambayn Suleymaan waxaa loo dhiibay meel la yiraahdo Kafa maamulkeeda oo ka tirsan Qiram. waa meeshii koowaad Suleymaan oo madax ka noqdo. Suldaan Suleymaan waxa uu xilka la wareegay kadib markii uu geeriyooday aabihii Saliim. xilligaas oo ahayd taariikhda Shawaal 926 hijriyada ku beegneed Sebtembar 1520 ayuu la wareegay awoodda boqortooyada. inta uu xilka hayay Suleymaan boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay gaartay balaarinteeda ugu balaarneed waxayna noqotay dowladda ugu xooga badneed xilligaas. ergeyga Venetian Bartolomeo Contrini ayaa sifaynta ugu horeysay suldaanka ku sifeeyay kadib dhowr toddobaad markii uu xilka la wareegay. waxa uuna yiri waa 25 jir dheer oo dhuuban wuxuuna leeyahay midab jilicsan qoortiisuna way yara dheer tahay wajigiisuna wuu dhuuban yahay sankiisuna wuu xiran yahay shaarbuhu ayaa sii dhacaya garkiisuna wuu gaaban yahay haddana waxa uu leeyahay muuqaal qurxoon midab tiro leh. waxaa la sheegayaa inuu yahay nin xikmad badan oo waxbarashada jecel. ragga oo dhammina waxay ka rajaynayaan wanaag xukunkiisa. Suldaan Suleymaan Al-Qaanuuni wuxuu xukunka boqortooyada hayay 46 sano oo ahayd xukunkii ugu dheeraa. reer galbeedka waxaa loogu yaqaanay suldaankii weynaa iyo Suleymaan the Magnificent. Suldaan Suleymaan waxa uu dib u habeyn ku sameeyay nidaamka garsoorka Cusmaaniyiinta. garsoor oo quseeya bulshada, waxbarashada, canshuuraha iyo sharciga dambiyada. sharcigiisa waxa uu u qeexay qaabka boqortooyada noqon doonto qarniyo kadib dhimashadiisa. Suldaan Suleymaan waxa uu ku hadli jiray 4 luqadood oo kala ah Carabi, Faris, Serbian iyo Jaaka. suldaanka waxa uu ahaa boqor hogaamiyo geesi ah. xukunkiisa waxaa ku jiray caasibado badan xadaarado leh oo kala ah Athens, Sofia, Baghdad, Dimashq, Istanbul, Budapest, Belgrade, Qaahira, Bucharest, Tabriz iyo Algiers iyo kuwa kale. Suldaan Suleymaan waxa uu noqday taliye caan ka ah qaaradda Yurub qarnigii 16aad isaga oo madax ka ahaa dowladdii Islaamka ugu sareysay awood ciidan, mid siyaasad iyo mid dhaqaale. suldaanka waxa uu hogaamiyey ciidamada Cusmaaniyiinta si ay u qabsadaan dhufaysyada Kirishtanka iyo qalcadaha Belgrade, Rhodes iyo inta badan boqortooyada Hungary. ka hor inta aanu joojin go'doominta Vienna 1529 waxa uu ku daray inta badan bariga dhexe markii uu dagaal kula jiray Safawiyiinta iyo dhul baaxad leh uu ka yimid waqooyiga Afrika ilaa Algeria. Suldaan Suleymaan inta uu xukumayay boqortooyada maraakiibta Cusmaaniyiinta waxay maamulayeen badaha gobolka min Mediterranean-ka ilaa Badcas iyo ilaa Khaliijka. Suleymaan Al-Qaanuuni wuxuu khudbadiisa ku bilaabi jiray aayad Qur'aan innahu min Suleymaan wa innahu bismillaahir rahmaanir rahiim. goobihii dagaalka ay boqortooyada Cusmaaniyiinta u dhaqaaqday si ay awoodeeda u sii fidiso waa ay badnaayeen waxaana ka mid ahaa Yurub, Aasiya iyo Afrika. 927 hijriyada ku beegneed 1521 miilaadi iyo jasiiradda Rhodes 929 wuxuuna suldaanka go'doomiyey Vienna 935. Suleymaan waxa uu ku daray qaybo ka mid ah Hungary oo ay ku jirto caasimadda Budapest wuxuuna ka dhigay gobol Cusmaaniyiinta ay leeyihiin. sidoo kale suldaanka Afrika waxa uu ka qabsaday dhulalka Liibiya, inta badan Tunisia, Eritrea, Djibouti iyo Soomaali. wadamadaas waxa ay noqdeen kuwa hoos taga dowladda Cusmaaniyiinta. 1521 wax yar kadib markii uu xukunka kala
la wareegay aabihiis Suleymaan waxa uu bilaabay iska hor imaadyo military isdabajoog ah oo ay ku jiraan xakamaynta kacdoonka uu taageerayay gudoomiyihii Dimashq 521 Suleymaan waxa uu markaas u jihaystay Grand Vizier Beri Maxamed Baasha ilaa Belgrade oo uu isku diyaariyay in uu ku soo duulo boqortooyada Dimashq Hungary oo uu ku guuleystay halkii awowgii oo weynaa Maxamed al-Faatix oo ku kuuldaraystay maadaama Hungariyiinta ay ahaayeen cadowga kaliya ee haray kadib markii ay burbureen Byzantiniyiinta iyo Serbiyaanka iyo Bulgaariya kuwaas oo ka hor istaagi kara inuu sii wado qabashadiisa Yurub kadib Suleymaan iyo ciidankiisa waxay hareereeyeen Belgrade oo ay ku garaaceen madaafiic ay ka soo qaadeen jasiirada u dhow webiga Danube Belgrade waxa lagu qasbay inay isdhiibto waana la qabsaday warka qabashada Belgrade oo ah mid ka mid ah qalcadaha Masiixiyiinta ee ugu adag ayaa ku faafay sidii dambaska cabsida waxay ku fiday Yurub oo dhan sida uu sheegay safiirka xiligaas safiirka boqortooyada Roomaanka waxa uu yiri qabashada Belgrade waxay asal u ahayd dhacdooyin dhowr ah oo la yaab leh oo ku dhuftay Hungary oo ah kuwa ugu caansan oo ay ka mid yihiin dimashada King Louis II qabashada Buda la wareegida Transylvania burburinta boqortooyo barwaaqo ah iyo cabsida dalalka dariska ah oo laga baqay in soo wajahdo xaalad isku mid ah ciidankii ku sugnaa jasiirada Rhodes oo ay taageerto kaniisadda Roma ayaa had iyo jeer weerartay maraakiibta Islaamka oo ay bilaqaysteen wixii ku jiray markab xaj ah maraakiibta ganacsiga waxay dileen tira ka mid rakaabka ah Sultan Suleymaan waxa uu ka xumaaday ka carooday arinkaas kadib sultaanku waxa uu go'aansaday inuu qabsado jasiiradda amiirkii jasiiradda markii uu maqlay ololaha القانوني diyaarinayay waxa uu bandhigay inuu abaalgudo si uu gargaar ugu codsado Yurub laakiin khaliifkii wuu ogaaday arinkaas wuuna diiday codsigiisa markii suufiyadii jasiiradda ku sugnaa ay diideen inay u dhiibaan jasiiradda Cusmaaniyiinta ayaa madaaficii Cusmaaniyiintu waxay ku garaaceen darbiyada qalcadda jasiiradda tira aan la soo koobi karin qalcaddaas oo ahayd mid ka mid ah qalcadaha ugu caansan adduunka waqtigaas ciidanka suldaanka ayaa dhufisyada hoostooda ka qoday 50 god waxayna weerar dhulka hoostiisa ku soo qaadeen magaalada ciidanka difaacaya jasiiradda ayaa nafuur sameeyay markii suufida iyo ciidanka jasiiradda difaacayay ay ka dhamaatay sahaydii waa ay isdhiibeen taariikhdu markay ahayd 929 hijriye ayaa suldaankii Cusmaaniyiinta Suleymaan al-Qaanuuni waxa uu soo galay jasiiradda si guul ah Sultan Suleymaan waxa uu u jeestay Hungary gaar ahaan markii uu xumaaday xiriirka isaga iyo warqadihii ay la lahaayeen Faransiiska kuwaas oo codsi u gudbiyay suldaanka si loo wiiqo boqor Charles V cadaadisna loogu qaado Faransiiska reer galbeedka Suleymaan al-Qaanuuni wuxuu abaabulay ciidankiisa wuxuuna u dhaqaaqay dhanka Hungary isaga oo sii maray Belgrade oo ku hoos jirtay xukunkii Cusmaaniyiinta intuu u socday wuxuu qabsaday Suleymaan qalcado badan wuxuuna safray in ka badan 1,000 kiiloomitir si uu u gaaro goobta dagaalka ciidanka Cusmaaniyiinta 128 maalmood ay wadada ku sii jireen baadariga Faatikaanka wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo Yurub oo dhan kadib ciidanka geesiyaasha Cusmaaniyiinta waxay la kulmeen ciidanka Hungariga ee gobolka Mohaakis tirada ciidanka Cusmaaniyiinta waxay ahayd 100,000 halka tirada ciidanka Hungariyaanka ay ahayd tiradooda 200,000 oo ay taageerayeen dhammaan boqortooyinka Yurub dagaalkan lagu magacaabo Mohaakis muhiimka ahaa wuxuu dhacay 932 hijriyada ku beegneed 1526 miilaadi dagaalkan waxa uu dhamaaday 2 saacadood kadib markii uu guuleystay Sultan Suleymaan ciidamada geesiyaasha Cusmaaniyiinta ayaa baabi'iyay dhammaan ciidanka Hungariyaanka iyo ciidanka Yurub ee taageerayay wuxuu ahaa jab taariikhi ah ilaa hadda tusaale loo soo qaato tactikada Suleymaan waxay mustaxiil ka dhigtay xitaa ciidanka Yurub inay ku fikiraan inay baxsadaan cararaan waxa meesha lagu cirib tiray ciidan intaas la eg khasaarada jabkaas ka soo gaaray Hungary waxa baxday weedha reer Hungary caadada u lahaayeen oo ah markay dhibaato ku dhacdo waxay yiraahdaan dhibaatada maanta inoogu dhacday way ka darneed maalintii Mohaakis Cusmaaniyiinta waxay noqdeen quwadda ugu weyn bariga Yurub inta suldaanka uu hayay xilka ciidanka badda ee Cusmaaniyiinta ayaa gaaray heer aan hore loo arag Suleymaan wuxuu hogaamiyay raxan xoog leh oo uu ku weeraray xeebaha Isbeen iyo maraakiibta Saliibiyiinta ee badda Mediterranean-ka inta uu xukunka hayay Suleymaan al-Qaanuuni boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay gaartay horumar aad u sareeya oo dhinacyo kala duwan leh geesiga Suleymaan al-Qaanuuni taariikhdiisa iyo guulihiisa wax hal buuqan lagu soo koobi kara ma ahan sababtoo ah waxa uu hogaamiyay 13 duulaan oo waaweyn oo taariikhi ah waxa uuna furtay in ka badan 360 qalcadood iyo magaalooyin isugu jira geesigii Suleymaan waxa uu dhintay isagoo ku guda jira go'doominta Zagreb ee dalka Hungary September 7 1566 miilaadi kadib si ay ciidanku u hanjabin saraakiisha ayaa isku raacay in ay ka qariyaan ciidanka geerida Suleymaan sidaas darteed waxay ku aaseen qalbigiisa xubnihiisa gudaha teendhada uu degnaa si uu u qurbin meedkiisa uma ilaashadaan meedkiisa ilaa ay kaga naqdaan caasimadda Suleymaan the Magnificent geesigii
geesigii muslimiinta dhimashadiisa kadib waxaa loogu magac daray goobo badan oo ay ka mid yihiin masaajidka weyn laga dhisay magaalada Istanbul ee caasimada u ahayd dowladii Cusmaaniyiinta. Inkastoo in ka badan 100 dhul gariir ay ku dhaceen Istanbul, haddana wax saameyn ah kuma yeelan haba yaraatee masaajidkaas. Kuliyadda Suleymaan waxaa laga aasaasay Istanbul 1550kii, waxaana dhismaheeda gacanta ku hayay nashqadeeyaha lagu magacaabo Sinan, waxaana ka qayb qaatay 305,000 shaqaale ah. sidoo kale waxaa loogu magac daray masjidka Suleymaan ee magaalada Mariupol ee dalka Ukraine. ugu dambeyn, daawadaha sharafta leh, halkan haddana la soo gaartay aad u mahadsan tahay. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar si uu dad badan u gaaro, share dheh asxaabtaada aad jeceshahay la wadaag, nagu soo bir subscribe dhaho janaalkeena. intaan muuqaalkan la xidhaa ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.